السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالقة وولاشين صفية لورين ميل كستود أدونك جوجتان سلام قبيد كسو دواذا يوتيوب جانال كيغا maanta waxaan idin wadaa baraamburkaas wuxuu ka hadlayaa walaalaha dadka ehelka ah oo mar walba sii kala fogaanaya baryahan dambe oo adduunka kusoo batay arrintaasaan maaragtay rabaa inaan ku cabiro baraamburkayga walaalaha horey ila joogay waa idinkaga mahadcelinaya waad ku mahadsantihiin kuwa igu cusub waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada subscribe ka taabta si aad ula socotiin barnaamijyadayda gambaleelka tamisaabka commentiga intaas waa dhankiina asxaabe baryahan maaragtay aad baan maaragtay idinkaga mashquulay wax murtiya ma soo gudbinin waan idinka raali gelinayaa adduunyada iyo xaaladaheeda iyo arrimo maaragtay igu soo kordhay ayaan maaragtay dib xoogaa ii dhigay aad ayaan idin jecelahay dhammaantiin sida ay ila socotiin commentiyada quruxda badan waa idinkaga mahadcelinayaa asxaabteeda mar walba murtidii abwaanka waxay ahayd baryaan kala maqnayno waa idin basaasay bulsho yahay ma nabadbaa baraamburkiyaan marka maxaa la yiraahdaa gudagalaynaa insha allah bismillah salaamu calaykum Soomaali Muxammade murtidu waa soo duxdaa waygu soo degtaa waxaan dareemahan ka tiriya dadu hubta gaabay dadka kuwii ehela dunihiidan dagaal dhaxyaal maxay isu diidayaan laysu daaba socdaa malabkii laysu duhud shay dacar loogu roogahayaa qofkii duruufaysan maxaa loogu diigaanayaa midkii deeqha haysta maxaa loogu diidayaa oo xaniya isku diriya dood loola taagan yahay wanaagga loo diidayaa loona dahaalan yahay oo daacad baan ahaaye dembihiiba la iiga gaalay hadalla diibnahana dadka loogu sheegayaa maxaase kuugu diray walaal ka dadkuugu xiiga darajadow gaaray maxaad daha ugu xiree riximko laga turkaana dembi xoog labaha ku jira oo xaasid waa diiday diintan macaanta badan sidii adoonaysayo maahan dood ya muran sidii adoonaysidiyo maahan dood ya muran sidoo alla dejiyay waa in laysu wada digaa oo loo daamqadaha walaal ka ilaah dartiis xumaha loo diido door kii wanaag la faaro sunnaha nabigeena sowd kii rasuulka naaga calayhi salaatu wasalaam sax loo dhexgaalo salaantoo laysdhaafsadaa qayrkabaha ku sugan oo qalbiyadii kala sikaday laysu soo sikiyo oo sawdka naxariista badan waa sadaaqa iyo qayr qalbigu waa saafi goor tii la yeelo saas qalbigu waa saafi goor tii la yeelo saas shaydaanka sidoo jeclay waya oo sikaada qof walba soo howdka ahaan dhagaysto dardaaran suugan halaysi samuxo colaad wasariig iyo ceeb qaladka ruuxii sameeyo wanaha ku sooxo sooriya raahali noqo si walaalaha haddaad sidahaas yeesho qayr asalkaagu yahay
xumaanti waa suhusho qalbigayga saafi noqoy dunidan qofkii cafi sameeyaan saciira gaalin oo jannada sadka looga yeelaya meela saare isaacatuli jahaabo markow maydku soo saldhigo saatirow xusnil qaatimiyo qayrkana la ku suugo oo sawdka shahaada liisanku oo sugaa allow naxariistaadiga laga sugaa qalbiyadeenana xumaan nooga wada sifeey aamiin aamiin walaalayaalow quluubta iyo qalbiga xumaha markii laga sifeeyo waxaa ku soo haro wanaaga iyo khayrka waa la ogyahay adduunyada waa iska imtixaan waa daarul imtixaan dhibaatooyin badanaa dadka kala soo gudboonaada waxyaabo badanaa dhacaya isbedelo badanaa dhacaya xumo aadan qaadi karin ayaa maaragtay kula soo dirsaayo saas ay tahayna maaragtay waxaa la rabaa sabarka iyo wanaaga in la isfaro oo la isu soo dhawaado iskama keenin maaragtay murtidan iskagama soo dhicin laakiin waxyaabo badan oon arkay ayaa isbedelkan igu keenay walaalo badan oo dadka iskugu dhow oo maaragtay xaasid isku ah qofkii horumar gaaro oo dadka ugu dhow ay maaragtay ku noqonayaan cadow intay garab istaagi lahaayeen intii ay maaragtay maaragtay wax u qaban lahaayeen in walaalkii markuu qaladkaa galo oo u haysto waxa u qabatay iyo waxa u sameynaysan inay ahaayeen waajib lagu leeyahay isaga inuu saan kuula dhaqmana inaysan wax dhibaato lahayn caqliga noocaasa marka dhibaato badan u dhaliyay waxay dhalisay in la kala fogaado qof kastoo bini aadana oo walaal ah aakhiraha markuu rumaysan yahay Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyo oo rumaysan yahay wuu fahamsan yahay riximka qiimaha uu leeyahay walaalka wanaaga iyo riximnimada waa wax aakhira xataa maaragtay cadaabta lagu galo in aan riximkaaga gooysid lama goyn karo laana qaadic al-rixim ma fiicno qof fiican ma ahan nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu dhahay salman qadacak qofkii ku gooyo xariiri macnaheedu maxaa waaye ina adiga wanaaga samaysid oo aad dadaashid laakiin shaydaankiya wuxuu noo sheekeynaya oo ku leeyahay qofkaas adiga kama gardarneen ayadaa ku xumaysay ayadaa kaa qaldantay adiga waa dadaashay always garow ku siinaa markasta garaa isla leedahay adiga hase yeeshee dadka dambiyada gale oo qaladka ka dhacay oo walaalahood xumeeyey waa u sheegay waxaan dhahay saamaxaada idinkaa la idinka rabaa dhankiina ha ka soo bilaabato ha ka imaada dhinaciina oo ah maaragtay ina adiga raaligelin aad dalbatid qofka bini aadanka walaalka haddii uu qaldamo waxaa laga rabaa inuu qaladkiisa saxo runtii qaladkaaga markaad adiga fahamsantaa oo qaladkaaga aad saxdo in adiga culayskaaga waa yaraana culayska waxaan uga dan leeyahay qalbigaaga waa dhaawaca ku jiro markuu aad qof xumaysid ama qalad kaa dhaco qofka bini aadanka maaragtay damiirkiisa oo nool yahay oo dareen leh wuxuu dareemayaa inuu qof xumeeyay waa dhibsanaya waxaa laga yaabaa ina aad uga walwasho oo dhahdo oo waa ka xumahay wallaahi inaan qofkaas aan saas yeelo raaligelin inaan ka bixiyo waaye adi aa iskugu noqotid mar haddaadan dareemeynin inaan qof xumaysay ogow qalbigaaga maaragtay dareenkiisa ma fiicno laazim qofka inuu dareemo waaye inuu maaragtay qaldan yahay isxisaabiyo maxaa la dhahay isxisaabi intaan lagu xisaabinin taas waaye tan maaragtay halku dhiga aan maanta maaragtay arrinta uga dan leeyahay walaalaha inaan iswada baraarujino nafteyda iyo naftiinaba aniga dadka aan sheegayo kama madax banaani waa ka mid ahay because bulshada Soomaaliyeed waa isku mid dhaqankii meel ka jiro meel kastana waa ka jira qofkii ila arkay commentiga ha ku soo reebo in dadka qofka kuugu dhow ilaahay qadartiis uu xaasid kugu noqdo oo lugta kuu saaro oo aad garan weydid meelow kaala qaaday ama walaalka ha ahaado ama maaragtay walaasha ha ahaato ama qof kuugu dhow oo ehel ama habaryarta ha dhasho ama eedada ama qofkoo raba ha ahaado dadka ugu dhow ayaa iskugu xun adiga hadday ku haysanin qofay haysataa
marka waxaan isku oganahay waxa waaye inaan khayrka aan maaragtay iskugu yeerno walaalahey dhammaantiin meel kastood joogtiin salaan boqortooyaan idin leeyahay salaan gubeed maxaa u dhahday gabar walaal ah salaan gubeed waxaan u aqaanaa salaanta islaamka qof kastoo islaam ah waa gobonimada aan markasta sheego waa islaamnimada intaasna maaragtay waa idinkugu darayaa aad iyo aadaan idinkugu mahad celinayaa janaalkayga waxaa kor u qaado gabdhaha Soomaaliyeed u badan wiilashana waa ku jiraan qaar laakiin gabdhaha u badan aad u mahadsantihiin waayo murtida iyo suugaanta iyo baraamburka inta badan gabdhaha aad u jecel oo aad u dhageysto sida ay taageertiin waa ku mahadsantihiin subscribe-ka isiisiin waa ku mahadsantihiin haddana insha Allah waxaa idinka sugayaa commentiyo qurux badan subscribe gabdhaha igu cusub maaragtay inaa maaragtay like saartiin maasha Allah tabaarakallah dhammaantiin salaam boqortooyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu